doonaysaa inaad iska saado dhawaaqa luqadda Ingiliishka adigoon kaaga bixin wax lacag ah si free ah? haddii jawaabtaadu ay haa tahay, fadlan inala soo jaanqaad. maanta waxaan idin hayaa barnaamij lagu magacaabo English Conversation oo moobilkaaga Ingiliishka ama casharo aad ku qaadan karto si free ah, umana baahna inaad ku xirto internet. barnaamijka waxaa lagu magacaabaa English Conversation Offline. muuqaalkiisa kore ee barnaamijka waa qaabkan. Conversation oo keliya ayuu ku qoran yahay, waana sidan qaabkiisa. markaan furmo barnaamijka waxaad ku soo degsan kartaa amaad ka heli kartaa Play Storeka moobilkaaga adoo ku qoraya Offline English Conversation Offline. markaan galno kadib, Ingiliishka wuxuu u kala saarayaa level koowaad, levelka labaad iyo levelka saddexaad. levelka koowaad waxaa loogu talagalay dadka beginnerska ah ama bilowga ah. levelka labaadna waa loogu talagalay dadka intermediate ama dhexdhexaadka ah. levelka saddexaadna waxaa loogu talagalay dadka advancega ah oo Ingiliishka ay ku fiican yihiin. sidoo kale waxaa jira English phrases ayuu qoraa, phrasyo erayo English ah oo muhiim ah. intaba waxaad u dhegeysan kartaa si offline ah adigoon kuuga xirnayn wax internet ah. haddaan soo kicino qaybta koowaad ee barnaamijka ama levelka koowaad ee beginnerska loogu talagalay, bal u fiirso. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you American? Yes. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a student. How about you? I'm a student too. What's your name? My name is Jessica. What's yours? This looks like a nice restaurant. Yeah, it is. I come here all the time. Let's sit over there. Okay. Can you pass me a menu, please? Sure. What are you going to have to drink? I'm going to have a glass. level waliba wuxuu ka kooban yahay 40 ilaa iyo 30 iyo dhowr cashar ah. sidoo kale haddaan barooweyno levelka intermediate-ka ama dhexdhexaadka loogu talagalay. Hi, Rachel. Hi, Josh. It's been a long time. Where are you working now? I work at a software company downtown. I'm an engineer. That's interesting. What kind of software do you write? It's a database for small businesses. Does your company have a website? Yes. What's the website address? www.sun.com. How can I get the software? You can download it from the website. It's very popular, and it's free. Okay, I'll do that. I have to go now. It was really... iyadana waa sidaas. sidoo kale haddaan barooweyno levelka ugu dambeeya oo advancega loogu talagalay, bal yara dhegeyso. Sure. What's up? I wanted to let you know about a book club I joined a couple of months ago. I know you do a lot of reading, so I thought you might want to come with me next month. Oh, that sounds like fun. When does the group meet? Usually the last Saturday of the month at 9:30 in the evening. Is that too late for you? No, I think that's okay. What do you talk about in the group? Well, every month we choose a new book, and then during the next meeting we discuss it. What book are you reading now? The Kite Runner. I've heard that's a good book. What's it about? It is a good book. I'm almost finished. The book is about a boy who grows up in Afghanistan during the 1980s. It's called The Kite Runner because the main character takes part in a kite flying competition.
waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan ha ilaabin inaad noo reebto fikirkaaga ama aragtidaada adigoo inoogu reebaya qaybta commentiska ee hoose.